أنا waxaan ahay Maxamed Mukhtaar Imaan waxaa jira xanuun ina hoos dhinaca kaadida iga qabay marka wuxuu igu soo saaray dhagaxyo oo ah 6 kamid ah 6 dhagaxyooda igu soo saareen arkay doctorka waa fiican yahay si fiican uu soo qaabili dadka meesha shaqeeyana oo kulli waxa ka shaqeeyana aalay u fiican yihiin yani ma malaysaneen yani meel oo important oo waxa laakiin waa meel oo weyn oo ka shaqeeyaan intaas maqluuqa. We have patient aged about 76 years complaining of acute retention due to stone in posterior urethra, and there's many stones. And when we make investigation, we find more than 5 others stones in bladder, everyone about 1 centimeter in diameter. Both kidneys was normal, but patient special case in this patient he was complaining of heart surgery. He undergo to heart surgery, bypass on heart, and taken anticoagulated drugs since long time. So the emergency decision was to remove these stones, and we do it by cystoscopy. Alhamdulillah, we remove all, and he's normal now, not complaining of any matter. maanta bukaankan noo jooga waa bukaan 76 jir ah wuxuu ka cabanayay kaadida culays ka jira oo ku adkaatay inuu kaadiyo kadib waxa uu sameeyay baaritaano waxaan ogaanay in ilaa iyo 6 dhagax ay ku jiraan kaadi heestiisa kadib waxa go'aansanay inaan u sameeyno qaliin laser oo lagu soo saaray dhagaxyadaas 6 ah alxamdulillah qaliinka waa ku guuleysanay dhamaan dhagaxyada waa laga soo saaray haddana xaaladiisa bukaanka waa fiican tahay 100%.